dib loo adkayn lahaa sharciga lagula tacaalayo kooxaha muqdisho u shaqo tegay waa murta ay ku saabsan tahay faalladan warku waana qalinkii maxamed cumar sheekh cid kasta oo dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadkiisa ka gashay gaf iyo meel ka dhac waxa taariikhda looga soo joogay in aan la mahadin jamhuuriyadda Soomaaliland muddo 30 sanadood ka hor ayay albaabada u xidhay 30 sanadood taariikh madow ah oo ay ka mid ahay Soomaaliya waxaana madax banaanideedii kala soo noqotay dalkaasi 18 bishii May sanadkii 1991 kadib halgan qaraar oo ay shacbiga Soomaaliland la galeen taliskiisii Adbare muddadaasi dheer waxay Soomaaliland ku guuleysatay inay dalkeeda xaslato waxaanay samaysatay dawladnimo dimuqraadi ah oo awoodda la isugu wareejinayo rabitaanka dadweynaha sidoo kale waxay noqotay dalka kaliya ee madaqada doorashooyinkeedu naadirka ku yihiin qaaradda Afrika sida ay qireen goobjoogayaashii ka soo qayb galay doorashooyinkii isku sidkana ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka kuwaasi oo ku tilmaamay in doorashooyinkaasi ka dhacay Soomaaliland ay yihiin qaar ku cusub Afrika oo doorashooyinkoodu mugdi badan hareeyay isla markaana dawladuhu gacanta sare yeeshaan doorashooyinka Soomaaliland ay gashay waxay isugu jiraan 7 doorasho oo kala aha 3 doorasho oo madaxweyne 3 gole deegaan iyo 2 doorasho oo wakiilada marka sidaasi ay tahay waxa la yaab leh kooxaha carquleedka u jooga Muqdisho ee sheegaya inay matalaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo isog inaanay cidna matelin ra'iisul caamka bulshada Soomaaliland waxay sheegeen in kooxaha Muqdisho ku sugan ee sheeganaya Soomaaliland inay yihiin ashqaas asal madoorshayaal ah oo wadankooda ka galay khiyaamo qaran kuwaasi oo maalin ay noqotoba sharciga la marin doono ugu dambeyn waxaan golayaasha xukuumadda iyo wakiilada u soo jeedinaynaa inay dib u eegis ku sameeyaan xeerkii lagula tacaali jiray dadka xamar u shaqo tegay oo xeerka iyo dastuurka uu dhigayo inay yihiin dambiilayaal qaran inta waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo halkudhigeedu waxa la gaaray xilligii dib loo adkayn lahaa sharciga lagula tacaalayo kooxaha Muqdisho u shaqo tegay faalada waxa qoray maxamed cumar sheekh waxaana halkan idin kala socodsiinayay anigoo ah Su'aab Cabdi Goole